الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mahad ilaahay kadib walaalayaal caawa waxaa weeye waxaanu u fadhinaa muxaadaradii aan u ballansanayn la iclaaminayay shalay iyo daraad muxaadaradaas oo ku saabsanaan doonta insha allahu tacaala duruusu rixlati najdati wa dilaalaatuha duruustii laga faa'iidaysanayay safarkii kaalmada waad ogsoontihiin dhammaantiin fadiilatu sheekh maxamed cabdi umal iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa ka baxay magaalada Nairobi oo u baxay xagga iyo dalkii Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan si ay maaragtay kaalmo u gaarsiiyaan dadkii ku waxyeeloobay fatahaadahana ay maaragtay wixii muslimiinta laga soo aruuriyay ay gaarsiiyaan marka insha Allah taala sheekha iyo wafdigiiba si nabad leh bay ku soo laabteen sida caadada u ahaan jirtayba sheekhu markuu safar noocaas oo kala galo oo hawsha guud ee ummadda muslimiinta uu ka shaqeynayo wuxuu qaban jiray muxaadaro uu kaga hadlayo duruusta laga soo faa'iideystay safarkaas muxaadaradana waxay ku saabsanaan doontaa insha Allah taala safarkii u dambeeyay ay ku tageen Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo kaalmadii la gaarsiiyay dadka muslimiinta ah iyo maaragtay dhammaan ilaa ay ka soo laabtaan marka insha Allah taala waxaan idinku baaqaynaa dhammaantiin si fiican inaad uga faa'iidaysataan muxaadarada sheekha si fiican aad u weelaysaan waxaan ku soo dhaweynayaa fadiilatu sheekh falyatafaddal mashkuuran ma'juuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وما أسكال تبارك وتعالى كلا كان عاوي نصر تقليي بدون مقدمات سيدا وشيغي الأخ الشيخ عبد الحليم عاوى وهي تاريخ الهجري قتهي بشا ربيع الثاني كوجذا كن أفر بقولي أفرتن ووافقسن لواتني ستيد بشا نوفمبر لوضع كوني استقالي تونكا وحن فردنا مساج كسيسكا أبو بكر الصديق وحنو بلنسنا هاي حاضرة عنوان كذا للشيء دروس رحلة النجدة ودلالاتها دروس اللي فايدة سنة يو سفر كي قرمتك هي تسموينك حيالها رحلة داسي اللي فايدة استعمى يكتصيص إن شاء الله تعالى حنكسو كوبي دونا وربحين يرى كوبا إيو فوائد وما دلالاتك أي رحلة لهيد waxaan kaga daynaynaa culimadeennii hore waxaa dhaqan u ahaan jirtay in badan oo ka mid ah inay qoraan raxalaadkooda safarraday galaan halahay la kulmaan waxa laga faa'iidaysanayo inay qoraan ayaa culimada in badan daabi u ahaa marka taasaan kaga daynaynaa waxaynu wada ogeyn magaalada Nairobi markayna soo gaadhay fatahaadihii ku dhuftay gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo meelo ka mid ah dalka Soomaaliya oo aan warbaahinta ka maqalay oo inagii gurmanay dadaalka badan bixinay masaajida suuqyada muxuu ahay goobaha caamka jidadka dhalinyaradii dumarkii ganacsatadii culimadii looma kala hadhin dadaalkaas aynu wada dadaalay ilaahay fadligii waxaa ka soo baxay inay noo soo ururtay lacag 300 oo kun oo dollar ah waxyar baa dheeraa waxyaroo dibadaha ka yimidna way ku jireen
haddii la fadhiistay oo ganacsatadii culimadii la wada fadhiistay waxaa laga wada hadlay lacagtan ma dirnaa mise inaga qaadna labada ra'yiba way jireen waxaa la isla gartay oo la qaatay go'aan ah inaan qaadno oo meeshii ku sinno 7 ruux waxaan ku baxnay 6 ruux oo ganacsato ah iyo anigoo la socda lacagtii baan qaadnay طبعا ما أنا حنبارسني لكن شركتها مرينا حوالده waxaa kaloo isku qabanay matoos baan u aadnaa beledweyne mise caasimadan sii marnaa muqdisho waxaa la isla qaatimay caasimadan sii marno guddi waxaa jira qaran oo ganacsato iyo culimo isku jira oo loo sameeyay maareynta musaa'ibta dabiiciga ama fatahaadaha badhe marka inaan sii marno oo guddigaas ka sii warqaadanno wixii tashiisa sii dhaafsanno macluumaad ka helo sidaasaan markii dambe qaadanay saasaan magaalada muqdisho u aadnay guddigii iyo culimada hay'adda culimada Soomaaliyeed culimo ka socoto isla guddiga ka tirsan iyo mas'uuliyiin dawladda ka mid ah ayaan ugu soo dhaweeyay airportka kadibna waa nala kaxeeyay markaan hotelkii tagnay kadibna waxaan fadhi markiiba wada qaadanay hay'adda aan idin sheegayo u xil saarnaa fatahaadaha iyo musaa'ibta iyo sidii looga qaban lahaa iyo culimadii ku jirtay ayaanu la fadhiisanay macluumaad bayna siiyeen dalka iyo meelaha ugu dhibka badan ee dhibaatadu gaadhay waan wada tashanay waxayna siiyeen macluumaad dhahaysa inta badan meelaha waxba la gaarsiiyay cuntooyin waa la gaarsiiyay laakiin hadda waxaa mudnaanta leh biyahan dhowrkii sanaba mar soo fatahaya wabiga in xal rasmi loo helo sidaas daraadeed waxaan ku talinaynaa lacagtan aad wadaan iyo tu kaloo la hayo in loo dhigo xal rasmi sidii looga gaari lahaa biyahan kolba dhowrkii sanaba fatahaadda sameynaya wabiga wax lagaga qabto annaga waxaa noo go'onayd markaan tagno meesha aan u soconno wixii nooga soo baxay inaan ku go'aan qaadanno isla maalinkaan magaalada tagnay habeenkeedii ballan hore ma jirin madaxweynahan la kulanay asagana macluumaad baan isdhaafsanay waa iswarsanay subaxdii axadda ayaan baxnay oo magaalada beledweyne u baxnay halkaa waxaa ka dhisan sidoo kale guddi isugu jirta ganacsato iyo culimo guddigii ayaan na soo dhaweeyey iyagaan raacnay guddigii baan maalinkaas iyo maalinkii dambeba wada fadhiyo la lahayn 3 fadhi baan la qaadanay fadhiga ugu horeeya wuxuu ahaa bal inaan macluumaad ka helo waxay ka kooban yihiin siday u shaqeeyaan baahida jirtay iyo siday u kala tahay iyo meelaha daran iyo dadka say wax u gaadheen macluumaad inaan ka helo markaan macluumaadkii ka helay fadhi dambaan haddana u ballanay oo su'aalihii noo soo baxay aan weydiinay su'aalo badan oo aan tabaynay ayaan warsanay fadhiga labaad fadhigii saddexaad waxaan la yeelanay annagoo marka go'aan qaadanay go'aankaan qaadanayna wuxuu ahaa meeshii iyo qaabkii ammaanada aan wadno aan ku wajihi lahayn ama aan ku hagaajin lahayn warbixintoodii waxaan ka helay horta guddigani inay yihiin guddi isku dhafan 22 xubnood oo guddi caam ah iyo 9 xubnood oo guddi fulin ah dadkaasi waa ganacsato iyo culimo isku jira qabaa'isha deegaankuna inta badan way ku jiraan xubno matalaya ku jira shaqo aad u badanna way qabteen dadaal badan dad aan seexanaynin shaqooyinkoodii ka tagay dadaal badan haya waxaa hormuud u ahaa shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ragga u jooga meesha sida hormuud oo kale dahabshiil shirkadahaasi mumthiliintooda meesha u joogay ayaa arinta maamulkeeda odayaalka ah طبعا waad garan kartaan ruux gaajaysan wax looma dhiibto Soomaa
ruux gaajaysan dad wax u dhiibato hada shaydaankaaba wax ku qaadi kara moogta halkaasi marka ilaahay fadligii warbixintooda waxaa nooga soo baxay dadaalkay wadaan iyo inay yihiin runtii dad isxilqaamay khayr badanna wada warbixintayna siiyeen baa waxaa nooga soo baxday kow horta biyihii markaasi inta badan way noqdeen oo magaalada waa lagu noqonayay qaybo ka midana waa lagu noqday laakiin biyihii beledweyne dhaafay inay shabeellada dhexe webiga tuulooyinkii saarnaa inay go'doomiyeen yani wax way balcad iyo jawhar iyo wixii ka sokeeyey iyo inay go'doomiyeen magaalooyinka waaweyn maaha laakiin tuulooyinkii dhulkaa inta badan webiga hareerihiisa waxaa dega dadka muxuu ahaay dad aada u tabaryaroo beeraley ah oo muxuu ahaay inta badan dadka dibadaha loo jira aan ahayn marka waxay noo sheegeen biyihii halkaa ka tegey uu dhaafay beledweyne inay halkaa hadda ay go'doomiyeen roobna ka da'ayaan magaalada beledweynena waxoogaa musaacadaad fiican ay soo gaadheen haba u badnaadeen raashiimo iyo wixii la mid a marka waxaan go'aansannay in baahida ugu badan waxaa kaloo inoo sheegeen inay jiraan tuulooyin aan la gaadhin waxna la gaadhsiinin aanana la gaadhi karinba adagta in la gaadho waxaan go'aansannay baahidii markaan qiyaasnay miisaannay macluumaadkooda wax ku dhisnay waxa ugu badan ee dadku hadda u baahan yihiin inay kaash tahay sababtuna waxa weeye ilmihii caanay u baahan yihiin ruuxii da'da ahaa caanuu u baahan yahay haddii deegaamadii dib loogu noqonayo waxay wax ku hagaajistaan bay u baahan yihiin raashiinkii adkaa waa looga baahi badan yahay waxaan go'aansannay marka inaan idhaahno lacagtan aan wadno kaash ku bixiya $50 $20 waxay u gaadhaba qoysaska kaash u siiya leanna baahida ayaa markaa sidaa u badnayd raashiimana way jireen raashiimana way soo socdeen walow baahidu ama jirteen lacagtii waa kala qaybinay $120,000 waxaan u dirnay guddi iyagoo kale oo ka dhisnaa shabeellada dhexe $183,000 waxaanu u dhiibnay guddigii ka dhisnaa magaalada beledweyne waxaana kula dardaaranay inay xoogga saaraan tuulooyinka aan weli waxba gaadhin sidii lacagta waa la gaadhsiin karaa ayaanu kula dardaaranay intaasi ayaanu ammaanadii ku gudannay gacantoodana ku wareejinnay halkaasay gashay marka wixii laydinka ururiyey iyo ammaanadii aan idinka qaadnayn sii qaadnay halkaasay gashay ilaahay ha idinka aqbalo hana inaga wada aqbalo intaa kadib magaalada maanaa kusii nagaanin maalinkaan tagnay maalin ku xigta labada bari baan joognay laba kelimo oo midna masaajidka magaalada dhexdeeda ah oo caam ahayd iyo hal kulan oo aan ducaadda magaalada iyo culimmada kutubta akhrida aan la yeeshay ayaa weheliyey waxaa saddexeeyey casho sharaf ay noo samaysay dowladda muxuu ahaayey hirshabeelle madaxweynaheedii inoo yimid oon habeen la cashaynay intaasi markay noo dhammaatay waa ka soo noqonnay magaalada beledweyne waxaan ku soo noqonnay magaalada muqdisho caasimadda qorshahanagu wuxuu ahaa inaan joogno maalinta talaadada ah iyo arbacada khamiistana aanu safarkanagii soo weliba waxaanu u daahnay wuxuu ahaa guddigii qaranka ee fatahaadaha loo sameeyey ganacsatadii culimmada ahaa ayaa markaan sii soconnay waxay naga codsadeen soo noqodka waxaan rabnaa inaan qada idiin samayno kana tashanno masaa'ibtan soo noqnoqonaysiyo saan isaga kaashan lahay ayagaan u nagaanay marka barnaamijtanada kuma jirin marnaba laa si guud walaa si khaasatoona inaan magaalada muxaadaraad ka jeediyo laa masaajid walaa idaacad walaa ay shay walaa xataa inaan mas-uuliin la kulanno qorshaanaga maaha laakiin waxay ahayd inaan toos soo noqonno subaxdii baanu quraaca la samaynay quraac noo sameeyeen qoladii ganacsatadii iyo guddigaasi subaxdaasi waa iswarsannay waa dhammaysannay barqinkii baan soo kala tagnay ilaahay fadligii isla subaxdaa lafteeda ayaa waxaa laygu yidhi jaanis baa jira aad ku arki karto labadii madaxweynaha hore sheekh shariif iyo
madaxweyne xasan jaanis baa jira ma arki kartaa diyaar baan ahan ku idhi waa la kulmay iyagana waa u naseexiyey waxaan ku idhi waddanka ma xamili karo marxalada hadda uu marayo dadkuna ma xamili karaan waxyaalaha qaarkood marka dalka u tura ummaddana u tura war murtidiisu intaa yahay ayaa ku idhi way soo dhoweeyeen waa maalinka ay madaxweynaha la kulmayaan barqinkeedii way markaa aniga is arkayno laakiin waxay igu yidhaahdeen khaasatan sheekh shariif soomaalidu waxay taqaanaa buu yidhi oo yidhaahdeen ninka daciifkaa bay waanisaa ee ninka kursiga ku fadhiya sheekhumalo waani bay yidhi waayahay baan ku yidhi insha allahu tacaala waa wixii igaga aadan waa u sheeg anin nin kursi ku fadhiya nin kursi ka maqnay ma khusaysee laakiin naseexa isaara waa u naseexayn baan ku yidhi wixii tabartayda intaa kadib annagoo u diyaarsan inaanu soo noqonno ayaa ilaahay amarkii waxaa dhacday fadhiyada qaar ka mid oon culimmada la lahayn ayaa waxay iga codsadeen shakhsiyan inaan 2 beri sii joogo oo dambe 2 beri oo ah jumcada iyo khamiista jumcada inaan masaajidka isbahaysiga khudbo ka jeediyo iyo muxaadara caam ah oo isbartiibada ka dhacda labadaas aan qabanqaabinay dheh waan waxaan ku cudurdaartay war hawlo badan baan ka imid kumana talagelin adigu ilaahay amarkii waan waafaqay markii dambe warkii isaga ahaa iyo qorshahay soo jeediyeen ayaa waxaa la gaadhsiiyey madaxweynaha in la gaadhsiiyena looma baahdeen laakiin masaajidka isbahaysiga dowladda hoos taga isbartiibadana dowladday hoos tagtaa hadduu masaajid khaas ahaan lahaa wadaadada joogan baa lagala hadli lahaa arrintii markii la gaadhsiiyey madaxweynuhu waa soo dhoweeyey raggii agaasimayaashiisii qaar ka midu u yeedhay kadibna mas-uuliyadda qaada buu yidhi hawshaas khudbadana muxuu ahaay masaajidka isbahaysiga ee isbartiibadana hala diyaariyo isla galabnimadii waxaa laga iclaamiyey janalka rasmiga ah ee dowladda xsan t v ayaa laga iclaamiyey muxaadaradii iyo khudbadii labadaba halkaa markay marayso oo iclaankii baxay ayaa waxaa si kadaa u soo booday wadaad hanjabay oo xamar sheekh umar muxaadaro kuma qaban karo maalintii khamiista ahayd ayaa waxaa dhacday habeenkii khamiista soo galisay ii yimaadeen qolo ka mida dowladda madaxdeeda kadibna waxay iga codsadeen muxaadarada waxay ahayd inay dhacdo galabta jumcada midda oo isbahaysiga khudbadii way dhacday oo iyada isbahaysiga khudbadii waa ka jeediyey laakiin muxaadaradii oo ay ahayd inay ka dhacdo isbartiibada ayaa waxay yidhaahdeen gabadhii la dilay aaskeedaan ku mashquulsannahay noo dibdhig war iskaba baajiyaan ku idhi mushkilo male anuguna iska laabto maya lama baajinay noo dibdhig goormaad rabtaan axadda galabteeda waayahay baan ku idhi halkaana dibdhicii labaad baa yimid oo ay ahayd muhiimadiisu sababtiisu ay ahayd aaska gabadha iyo yacni isbartiibada amni ahaan labadooda mas-uuliyaadka ma wada qaadi karin mid ha naloo dibdhigo saas iyaduna ku timid intaa kadib markii meeshaa waxaa soo galay markaan khudbada jumcada jeedinay oo gabadha janaasadeediina aan ku tukannay ayaa wadaadadii masaajidka u yimaadeen qoladii dariiqooyinkii markii laga baxay janaasadii laga baxay ayay waxay bilaabeen inay tawxiidka nugu rabshaan tawxiid mataqaanaa tawxiid la isku rabshaay yani laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah baa rabsho loo isticmaalaya marka meeshaasay xadra ku qabsadeenoo lama danaynina waa laysaga gudbay sidaa iyadoo ah oo saas loogu talagashan yahay ayaa wax walba waa amar ilaahay subaxdii sabtida ahayd anoo hurda oo intaan tukannay hurdada ku noqonnay
ayaa iridda laygu soo garaacay waxaa la yidhi madaxweynaha ku raba aniga sheekh bashiir iyo sheekh cali wajiis baa u tagnay waa la quracannay madaxweynuhu wuxuu noo sheegay muxaadaradii inay dowladda ka go'an tahay inay sidii u fusho wax alla wixii process iyo ijraa'aad ee loo baahan yahayna dowladdu way qaadatay laakiin meeshu waa Soomaaliya waana Muqdisho wax kasta dhici kara wax waa imaan karaan laakiin ma filayno inay wax weyn dhacayaan waxaan idinku yeeray ra'yigiina maxay idin la quman waliba wuxuu yidhi wadaadkan aan rabaa inaan ra'yigiisa ku go'aan qaadano maxay kula tahay waxaan ku yidhi oon u sheegay qawaacidda shariicada waxaa ka mida bal qaacidada shariicada dhan ay ku wareegto waxa weeye qaacidatu jalbi almasaalix wa dafci almafaasid in ummadda wixii maslaxaana loo soo jiido wixii dhib iyo mafsado keenayana laga hortago ama la riixo hadday maslaxiyo mafsado isqabtaanna shariicadu waxay leedahay mafsadada reebideeda iyo dhibka laga hormarinaya maslaxada la raadinayo sidaas daradeed labayn maynee muxaadarada waa baajinayna dadku muxaadaraadka waa dhageystaan waayahan wax qarsoon baaba yar miidiyahaasa la iskala socdaa muxuu ahaay social media la iskala socdaa muxaadaraadku dadku way la socdaan cidii danaynaysa meel kasta ka heli karta waxba laazim ah marka muxaadarada waa baajinayna طيب intii wuxuun dhiba dhici karo wuxuun dhib ah intii ihtimaal yarna ha ahaado laakiin hadiiba wuxuun imaan karaya waynu baajinayna waxa ugu yar baan ku yiri oo suuroobi karaysa wadadadu nin waxay dhigi jireen Soomaalidu nin walba qoyani biyo iskama dhowree waxa dhici karta intay soo galaan garoonka inay garoonka dhexdiisa xadra ku qabsadaan sidii masaajidka ku sameeyeen kadibna dadka meesha dhageysanaya inay iyaguna rad ficil sameeyaan ila lama control karayo waa inta ugu yara dhici karta waa kadibna meesha wax ka yimaadaan waxa dhici karta ciidamadan kor jooga ee dadka muxuu ahaay in isku turtuur inuu dhaco dad wax ku noqdaan ama dad uun dhibaato loo soo gaarsiiyo marka wax baahiyo looga baahan yahay in hada muxaadaro dhacayso dad dib u gaadhay ma jiro arinta go'aankaas ayaan siiyay labadii sheekh waa igu khilaafeen arinta sheekh cali iyo sheekh bashiir madaxweynuhuna iyagu taageeray wuxuu yiri ma muxaadarada waa wadayna waxa yidhi maya ma soconayso waxaan u keeno markii dambe aan ku qanciyay qisadii al-khaliifatu ar-rashid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ardaa nimankii kacdoonka sameeyay markay isku wareejiyeen xafiiskiisa iyo gurigu joogay oo dili rabaan saxaabadii nabiguna ay difaaci rabaan khaliifku wuxuu ku yiri aniga sababteeda dhiig muslim u daadan maaye daaya waxay sameynayaan ha sameeyeen saxaabadii meeshii waa ka baxeen khaliifkii waa loo soo galay waana la dilay marka dhiigiisa inuu ku furto inuusan ruux muslima dhib gaadhin midaan hadda ka hadlayna wax weynba ma aha aadu markii dambe waa la isla qaatay sidaas ay muxaadarada horta baaqashadeedu sabab u ahay inta kadib madaxweynaha waa ka soo tagnay markaan ka soo baxnay kadib oo arrinta isla qaadanay laakiin aan isla soo dhaweynay in muxaadaradii ay telefishin ka baxdo ayuu wuxuu nagu yiri waxa sii martaan xafiiska ra'iisul wasaaraha waa sii marnay waa la fadhiisanay go'aankii baan u sheegnay aad buu uga xumaaday arintaasi sax ma aha buu yiri laakiin duruuf ahaan marka la qiimeeyo waa iska suurtagal laakiin magaaladu waa magaalo dad ka dhaxaysa magaalo nin u xidhan ma aha magaalo hal ruux inuu dad ugu hanjibara ma aha muxaadarada hadday dawladdu iclaamisan inay dhacday ahayd laakiin waxa meeshan ugu haystaa noocaas hore uga socda waa ka soo tagnay intaana ka tagay waxa isla qaadanay dhowr qodobka koobaad wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu inay iclaamiso muxaadarada inay dib dhacday sababteeda rasmigaana inay sheegto oo ah inaan anigu ka tanaasulay sidii bay u iclaamiyeen qodobka labaad waxa weeyaan odayga magaalada duqa magaalada in uu maalinta axadda ah qada sameeyo acyaanta magaalada ganacsatadeeda hogaanka dhaqanka in qada uu sameeyo qadadaasna aan ka qayb galno
iyaduna sidii bay u dhacday kulli warbaahinta oo kala socota qodobka saddexaadan isla qaadanay wuxuu ahaa muxaadaradii baaqatay in aan ka jeediyo telefishinka habeenkii isniintu soo galaysay iyaduna saasay u dhacday oo sidii la filayay si ka fiican ayay telefishinka uga baxday intaasi marka waa warbixin kooban kadibna subaxdii isniintayd waa soo noqonnay wixii sidaa ka duwan oo macluumaad ah waa waxaan saxsanayn macluumaadka rasmiga ah min bidaaya ilaa nihaaya sidaasay ahaayeen muhiimaddu warbixintaasi uun keliyeeta inaan saxay ahayd waxyaalaha qaarkood oo dadka qaarkood ay isla dhex wareegeen ujeeddada muhimka waxa weeye maxaan ka faa'iidaysanaynaa safarta iyo sidaa wax u dhaceen ilaahay tabaaraka wa tacaala sideedaba shay ma jiro alla abuuray oo shar keliya ma jiro shay kasta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu abuuro nooc nafciya ku jira safartaasi marka faa'iidooyin badan baa ka soo baxay faa'iidooyin ka soo baxay waxaa ka mid ah oo kow la dhihi karaa isu gurmadkii ummaddu ay samaysay oo meel kasta ka yimid oo deegaan walba laga soo gurmaday macno weyn bay samaysay guda iyo dibadba ha noqoto ganacsatada reer muqdisho oo tilaabadii ugu horreysay lahaa ha noqoto muxuu ahaay dowladaha soomaalida ee kale ama muxuu ahaay kuwan ha noqoto waddanka gudihiisa ama Djibouti ha noqoto ama xataa muxuu ahaay jigjiga ha noqoto iyo dowlad deegaanka muxuu ha noqoto kulli waa la soo gurmaday dibadihii waa laga soo gurmaday annaga safarka isaga aanu ku tagnay meesha waxaa dariiqa ku kulannay wafdi ka socda Puntland oo culimadii iyo mas'uuliyiin dawladda ka socday ganacsato ay usoo socdaan ilaahay amarkii safarkii dhacdadii Zobe safarkeedii markaan u tagnay isla maalin baan haddana ku kulannay airportka haddana reer Puntland isla maalin baan ku kulannay airportka musaacadada ugu badan oo waddanka gudihiisa ka timaadana waxa la dhihi karaa xaggaasi ka timid 21 baabuur bay soo rareen baabuur kalena way sii horeysay oo raashin ah reer Puntland lascaanood dadka socda waa ku kulannay muxuu ahaay sidoo kale waxaan magaalada ku kulannay beledweyn dhakhaatiir baabuur daawo ah keenay muddana magaalada joogay oo jigjiga ka yimid jigjiga laga soo diray ayagana meeshaan ku kulannay waxaa kaloo ku kulannay iyadana wafdi Mareykanka ka yimid oo iyagana musaacado wada waxaan isla ku kulannay wafdi galo Mozambique ka yimid oo iyaguna musaacado wada magaaladan isugu tagnay markaan Muqdisho ku soo noqonnay haddana Muqdisho soo noqodkii waxaan ku kulannay wafdi ka socda Uganda oo culimadii hogaaminayso iyo wafdi galo ka socda South Africa oo iyadana culimadii hogaaminayso ayaguna beledweyne ku sii socdeen oo waana doomareen meesha marka waxaa ka soo baxay oo muuqday oo cid walba aragtay Soomaali waxay isu tahay xaqiiqadeeda soo baxday sideedaba dadku waxay isu yihiin waxa la bartaa markay dhibaato timaado markay barwaaqo jirto saaxiibka lama garto ehelkaagana lama barto laakiin markay dhibaato ku haysaa ehelkaaga iyo saaxiibka la bartaa waxa soo baxday Soomaali inay tahay dad walaalo ah dad wadaaga dhalasho dhiig diin dal wax walba wadaaga wabitaali isu danqada isu gurmada wax isu hura arinta waxay keentay si amali ah duruus farabadan oo laga bixin lahaa war walaalaynu nahay war muxuu ahaay dad wada dhashay baynu nahay war dad isku diinaynu nahay war isku dal baynu nahay muxaadaraad farabadan oo laga bixin lahaa intaas dhaanta Soomaa muxaadaraad farabadan iyo hadal badan ficilka ka xeel dheer marar farabadan alfi'aalu ablagh min almaqal markan oo kala waay marka jismigii kaliya ahaa ummadan ayaa runtii soo baxay
waana arrin aad iyo aad loogu farxay dadkii loo tegay iyo dhammaan ummaddu meel walba aad baa runtii arrintaa iyada loo bogaadiyey hadda keliya tana ma ahee tii horena sidoo kale aad iyo aad bay u soo baxday waana waxaan isleeyahay waa arrimaha u baahan in la sii xoojiyo ummadda markay dhibaato qabsato musiibo qabsato in loo gurmado waxay keenaysaa inay quluubteeda isku soo dhowaato la walaaloobo يعني وحوي حساسياتكم ماشي كبحان لأن وحوي سيدة أوليها أبو الفتح البستي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه يعني ابن آدم كمركز إحسان أصميسه قلوبتي صدهنا نيسا وحقوق بوابايا إحسان كإنسان كالله سميه قلوبتي سأيوهنتا من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان وكيلها يعني وحوي الروحي حول ضدك السياي ضدك ورنبا حقي سأوى صوض اللي حني مالكنا وفتان ابن آدم كواتش عليه سيداس دراد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا إنسان حديث كي في صحيح مسلم غير كي كوي يمد ننكي أضيق لها النبي صلى الله عليه وسلم وحو أهانشري ضدك كان أقول نعبه diintiisuna waxay ahayd diimaha midaan ugu necbahay muusan ka zuulin inuu isiinayo ilaa uu ka noqday khalqiga midkaan ugu jeclahay diintiisuna ay ka noqotay diimaha midaan ugu jeclahay salada marka waa dardaaranoo hal is ogaado dadkana ixsaan ha loo sameeyo gaar ahaan markay masaa'ibtu dhacdo sida dhaqanka inoo hal la xoojiyo waxay keenaysaa من نمدي والالنمدي يحوجينيسا inaga dhaxaysa qodobka kale ee iyadana meesha ka soo baxay waxa weeye ilaahi tabaaraka wa tacaala ummadan wuxuu ugu hiiliyay wax badanna ilaahi ugu qabtay tabaaraka wa tacaala ganacsatadeeda iyo culimadeeda dadka inta badan gurmanaya ee wax qabanaya ee gudaha ka shaqeynaya ee u soo jeeda ama dibadaha wax ka keenaya inta badan boqolkiiba 90 waa ganacsatay iyo culimo waa dhakhaatiir aan xuduud lahayn dhakhaatiirta aan xuduud lahayn ganacsatada Soomaalidu xuduud ma laha ganacsigoodu meel kasto yaala culimaduna xuduud ma laha meel kastay marahayaan oo dadka wax u sheegayaan runtiina waxa la dhihi karaa muddadaasi uu dalka Soomaaliyeed burbursanaa ama ummadda Soomaaliyeedba dawrka ay ku leeyihiin iyo kaalinta ay ku leeyihiin waa kaalin aan la inkiri karin shirkadka waaweyn khaasatan si gooni ah ay runtii u amaanan yihiin dawrka ay qaateen sida Hormuud iyo Dahabshiil iyo Haas iyo shirkadaha waaweyn Hormuudka ka ahaa wax qabadka ummadda loo qabtay ama wixii loo geeyay in loo maareeyo oo la gaarsiiyo ha noqdo ama wax bixin ha noqoto qodobka xiga wuxuu yahay oo mudan iyadan inaan tilmaano ummadda waxa soo baxday oo iska muuqata inay ummaddu ay nidaam iyo dawlad u baahan tahay waa daruuro muuqata wala wada tabaya wala wada arkaa in dawlad iyo nidaam loo baahan yahay laakiin marka dalka tagto aad bay kuugu soo bixi baahida loo qabo ummaddan inay dawlad iyo nidaam hesho wixii jirana in la xoojiyo in laana nidaam la'aan mujtamac ma jiri karo maamul la'aan iyo imaara la'aan ma jiri karo bini aadan isu yimid oo dal ka dhaxeeyo oo hawli ka dhaxayso masaalix caam wadaagaya oo deegaan ka dhaxeeyo inuusan lahayn kala dambeyn iyo maamul iyo nidaam uusan lahayn waa waxaan suuroobi karin saas daraadeed shariicadeenu siday ahmiyadda u saartay waxaad ka garanaysaa xataa laba ruux oo wax ka dhaxeeyaan maamul bay u samaysay laba ruux iska dhuf saddex ruux laba ruux ninka iyo xaaskiisa oo gurigu ka dhaxeeyo iyo taladiisu lama dhihin lagamana aamusin waad simantihiinna lama dhihin maamul baa loo sameeyey sooma markii qolo walba xaqoodii iyo jidkooda la mariyay walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf maxaa laga dambeeyay walirrijali alayhinna daraja iyaguna xaq bay leeyihiin dumarkii
inta ay leeyihiin in leeg baa lagu leeyahay ragga hal darajo la dheer darajadaas maxay tahay waa darajada daruuriga ah oo haddii wax la wadaagayaba kala dambayn inay timaadaan الرجال قوامون على النساء haddii labo hawli ka dhaxayso shariicadu ay kala dambaysiin u samaysay maxaad u manaysaa ummadan oo magaalo degan ummadan oo dal degan kama maaranto laakiin nabigeenu sallallahu alayhi wasallam saddex ruux oo safar ah ha samaysteen amiir ha samaysteen falyu'amiru ahadahum midkood amiir ha ka dhigteen waa muhiimad caabira hadana maca dalika nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam saddex iyo hadayba gaadhaan ba amiir ha yeeshaan waxaad u malaysaa marka ummadan waxaad dareemaysaa marka dalka tagto sax dadku waa dadaalayaan magaalooyinkii waa dhismayaan waa fidayaan ganacsigii wixii la eri karo waa la eriyayaa laakiin markaaba ishaadu waxay ku dhacaysaa wixii dawlad looga baahnaa baa maqan wixii dawlad looga baahnaa baa maqan magaalooyinku qaabkay u dhismayaan ma aha qaab sax ma aha waxaad arkaysaa guryihii meel loo maro male sooma jidadkii ma jiraan nabadgelyadii iyo amnigii iyo yaani kala hagidii dadkii ma jiraan magaalooyinkii waa fidayaan saas daraadeed baahida ay ummadani u qabto inay dawlad iyo nidaam hesho markaaba ishaada ayaa ku dhacaysa arintaasi marka waxay keenaysaa in juhdiga badigii la isugu geeyo sidii nidaam xoog badan uga hirgeli lahaa dalka uga hirgeli lahaa adoomaduna ku kala nabad galaan masaalixdoodii iyo danahoodii caamka ahaana ay u suurto gasho waxaa kaloo ku tusaya sidoo kale arinta iyada ah marar fara badan masaalixdooda caamka waxaa burburinaya mid ama caqli yar ama danaysta ah ayaa waxa laga yaabaa inuu deegaan dhan uu fasaad ka abuuro inuu dadkii isku laayo inuu nabadgelyo la'aan abuuro inuu mashaakil kiciyo waa hal shakhsiyo ama caqli yar ama dan iyo maslaxa wata sababtu maxay tahay nidaamkii qaban lahaa ma jiro sooma ila nidaamka waxa loogu talagalay dadka qaar inta badan dadka way hagaagsan yihiin dadka jidkooda haystee sidaba nidaamsane xuquuqdooda ilaashanaya laga nabadgelaya jidka haystaay kuwaasi inta badan nidaamku inta badan waxa loogu talagalaa qolada fallaagada ee nidaam jabiska ah midka caqliga yar midka jiraa'imta wada midka xadgudubka wada wixii marka waxyaalaha qaban lahaa ayaa muxuu ahaayay ama daciifa ama meesha ka maqan waxaa kaleeto oo markaaba soo baxaya oo aad arkaysaayoo muuqanaya ajendayaal fara badan ayaa dalka ka socda ajendayaal fara badan iyo dana badan adduunkana saa hadda iska ah ruuxu mar hadduu kufo ama waddanku kufo ama burburo adduunku maanta waxaa heshiis lagu yahay ha laga shaqaysto ha loo daneeyo ma ah ha laga danaysto sidaas dayaal inta ajenda socda meeshaas iyo inta hay-ado iyo inta dawlado iyo balaayo iyo waxa qarsoon iyo waxa ka jira wax xisaabin karta ma aha meelaha qaarkood oo dalka kamid ah waa lama galay waxa ka jiraan lama oga maxaa ka socda marka 100 ajenda isjiiraya 100 dana socda 100 muxuu ahaay faragelin baa socota waxa soo dhanna sida qaalibka waxay u socdaan wax weeye inaysan ummadan burburtay ayna mar laba soo kicin ajendayaasha qaar kamid ah waxa fulinaya kuwo dalka u dhashay oo la isticmaalaya oo ku daaban ummado kale ku daaban ayaa ajendayaasha fulinaya ama dhuuni qaatayaal ah ama fahamkiiyo fiqigu halka ka galay ama ay ka tustay inuu halkaasi wax ku heli karo ama kursi ku gaari karo markaaba marka way soo baxaysaa ama dareenka dadka ama way ku muuqanaysaa inuu yahay wadankani wadan loo tashaday waxa ka soo baxay sidoo kale oo iyadana soo baxday khaasatan qadiyadii muhaadarada waxa ku soo baxday in ay dacwadan sunnada ah ummadan ilaahay ku badbaadiyay tabaaraka wa tacaala ilaahay sababta uga dhigay
qaar fara badan diinteedu u hagaajisay dumarkii xijaabtay masaalix fara badan ummaddan u keentay dacwada iyada ah cadowgeedu inuu badan yahayna oo marmarka qaarkood xataa laba cadow ay isu kaashanahayaan ayadana way soo baxday مثلا محاضرة إن لتشوتشيو دجال كضدك كجلهي محاضرة ولا تشوتشين كرا معنا وين مله لكن وحصاب حي وحاسوكا شنية طريقوين كقوة غلادة طريقوين كمرة والبوا كالربا طريقوين كعلماء كو أبتر صداي لو يوقف سمان علماء كتب تأخرين شرتو فقه كأخرين شرتو إن بدنوا كم ده محوها هاي أجنديال كانوا قرصون يوحك لأمودن كونا وكو غلاد أو حد جذب دنك كلاء أما دنك كلا تبع يكتشران مرك قليهاس طريقوين كأه نوعاس يقوليو كون زنادقة الدين لا وياش الدين تأصلهم بالدنيا منظون يوحي لمده ومحوها هاي دين تقاب فلسفية إنه وقت تخلصان إسكودية إيوه قول الشيعة صومالي الشيعودي إيوه قولوا موجدي كعذب فوشو أو كرسي كرادي أو سياسيين موجدي كعذب كرسي بيكاد حركان مركزي إسكودية أنا فلان أو كرسي كوجاران إيوه kooxdii wadanka nabadgelyadiisa qasaysay al-shabaab bal ka waran intaas haday meel isugu yimaadeen haday shabaab iyo suufiya isu yimaadeen oo ay shabaab iyo kuwii zanaadiqada isu yimaadeen oo kulligood ay dagaal ku hayaan cala shaani muhaadaradaas iyo dhicin maxaa ka dhaxeeyo haloo isweydii wax kale isugu yimaadaan ma jiro bimaana meesha waxa ka muuqda yani muhiimadu wax weeyaan dacwadan sunnada ee wasatiga ah ee ummadda barbaarinaysa ummadda wax baraysa muxuu ahay saxsan ayaa kulli cadow lala wadaya masaladu ma aha wadaadkan miskiinka ee meesha ziyaarada ku tagay ma aha laakiin masaladu waxa weeye way ka durugsantahay yani dagaalku wuxuu ku wajahan yahay meel ka shaqeysa arintaasina waa arin runtii ay soo baxdood ka aragteen social media dadka dagaalka ku jira markaad fiirisaan intaasay ka kooban yihiin Sooma qaar badan oo siyaasiyiin Soomaaliya arag oo dagaalka qayb ka ah war siyaasi oo muxaadaro la dhigayo maxaa ka galay miyaad garan kartaa adiga qolo shiica baa qayb ka ah oo kaliya yani wadaadadani maxaa shiicada ku dagaalamay qoladii aan radin jirnay ee muxuu ahaay zanaadiqada ahaa oo diinta inay dumiyaan ba iyagu u yimid ayaa qayb ka waxa soo dhan marka waxay isu kaashanayaan xalashaan barnaamijkan laga hortago laakiin waxa ka maqanay kulligood wada seegay waxani haduu adduunyo iyo wax khaldan yahayna ma soconayo waaba ku fayaaba haduu wax saxsan yahayna fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض دقال كستا هدي لغو قادو وحي إلهي وتي صحن باسعن وحي خلدنا واختبوا ليه هوري بانا لولا دقالمي دولة كواوين بالا دقالمي أدون كان لا دقالسن هدنا مع ذلك إلهي وحي تبارك وتعالى إذا كما هرتي كرتو إستقام باللقوي وحاسوبا حيسيدو كالو أو دروستا كمدا إنترنت iyo saameynta uu ku leeyahay mujtamacaadka ama ha noqoto positive ahaan ama negative ahaan salban ijaban iyo waliba xeeladaha shaytaaniga ay isticmaalaan qoliyaha isticmaala muxuu ahaayay social media مثلا waxaad arkaysaa sida sahlan ee ruux intuu qol cid la fadhiisto oo wax iska soo duubo oo markaaba uu baraha bulshada ugu soo dhaxtuuri karayo si fudud sida fudud ee xataa sawirada fabraka iyo loogu sameyn karayo in la qaso ama la isu geegeeyo ama wax laga bedelo waxa taa kaalmeeyay wacyiga bulshada Soomaalida ah oo in badan oo kamid hooseeyo
oo wixii meesha lagu soo duuraba moodaya inuu run yahay wixii media laga arkay Facebook laga arkay sheekh muxuu ahay WhatsApp ka lagu soo tuuray wariyaa ku soo tuuray midaal baan idin siinay wiil yar waxa ka soo baxay social media leh sheekh umal baan isku qarxinahayaa markaan isqarxiyo nabi maxamed baan u tagayaa ii soo duceeyo kulli dadkii waxay yiraahdeen war wadaada inta lagu qarxin soo cararbay waa dadkii asxaabta ah waa dad war waxan wax jira ma media soo wax u bubnay wax ma jiraan mar waxa la yiri hotelkii baa loogu dhacayo wadaadkii waa la cararayba telefoonka ugu soo dhacay war sheekh xageed joogtaa war ma lagu helay war ma dhaawac baad marka kadeedanay ummadii waxa ka maqan war waxan meesha lagu soo daadinayo 99% wax jira ma aha ruux qol galay oo muxuu ahaayay isa sawiray oo laga yaabo inaan la wehelinin xataa telefoonkiisa isku sawiray baa soo tuurahay markaas waxa lagu leeyahay balaayaa dhacday marka waxay naga maqan mabaadiidii tathabutka in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wax in la iska hubiyo ha kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a abu nabi sallallahu alayhi wasallam ruuxa dambi been waxa ugu filan wuxuu maqlaba inuu ku sheekeeyo ama sheer gareeyo ama sii faafiyo ruuxan wax jira ma marka waa duruus marka waxaad arkaysaa hadda dadka sheer gareynaya commentiga bixinaya moogsoontihiin markii la doonayo barnaamij in la faafiyo hal ruuxa baa wuxuu soo xidhanayaa 100 shaati 100 magac buu wuxuu ku soo galayaa social media soo saamul socotaan waa ruux ogow markaasuu commenti gareynaya magac buu commenti gareynaya hadana ku kala waa wareey war barnaamijkii umadii baa ka hortimid baa la leeyahay war maxaa goor yimid hal ruux oo kolba shaati noo xidhay waa sida oday jirjirooli marka waxa jira iyo say wax u jiraan hadayna wacyigeeda yeelanin waxa dhacaysa marmarka qaar kood in god la inagu tuuro saas daraadeed social media iyo waxa ka socday iyo dhageysi rumaysigiisa aad uga taxadara tan ma kaliya ma laakiin mabda ahaanba waxay u baahan tahay inaan duruus ka yeelan waxa kamida fawdada masaa'isha sharciga cadama marjiciya umadani wax ay khasaarto diinteeda ugu khatarsan waxaad arkaysaa marar fara badan qadaayaadka social media lagaga hadlayay waa masaa'il diini ah dadka ka hadlayana dad ehelu ama dad yaqaan ma dad xataa wax u bilaaban yihiin ma haddii aan muxuu ahay ayna diintu marjiciyo lahayn oo inta taqaana aan loo daynin fasaad bayn baa idana ka dhacay Allah tabaaraka wa ta'ala quraan kariimka waa ka inoo sheegay arrimaha in loo celiyo dadka ulil amriga wa idha jaa'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هدادا مسائش ماشي ذا أعلن وذن أهل كذا أعلن شيطان بات راعي ساس القرآن كله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا شيطان بات مركا كدوف سنة مركا مسألة دينية قشو هذه هلو تحذروا وحق الله صباحي وقضى مهمة إن أي أمضوا ولي أباهن تهي إن عقيدة ده هي عقل كذا بالله حريه وحنمود إني أمضى أنت هذا بدن إني توحيد كجاري ما أنت عد مال أنت الله وحده اللي يلاهذو هاي صدقات شنين أنا جاي حرناو ومسكح ذا لقى قفلاي أدون كان الصوّد فرماي بيني سنشرين بان مودي لكن waxa soo baxday wali inay jiraan dad u qafaalan oo u baahan in laga xoreeyo maskax ahaan maxaa yeelay wali khuzac balaad iyo khuraafaad iyo waxaan jirin baa umada wali qaar lagu maaweelinaya diin looga dhigaya mabaadidi asaaskii diintuba ku dhisnay asalka diintani wax way ilaahay kaligiina caabudo Soomaa oo la ilaaha illa allah maxay ka shaqeysaa لا إله إلا الله معناه سو إله كلي قال عبده ما
laa ilaaha ila allah alla keligii hal caabudaba hadday ummadii qaar ka qasantahay ka war mabdii diintuba asaaska u ahaa bilowgiisaba ay ka bilaabanaysa waxaan malaynayaa waxyaabihii hore ka imow laakiin maalmahan waxa dhacay haddaan laba miaal idinka soo qaado islaan waad aragteen islaamihii mudaaharaadahay laga soo qaaday Soomaaliya oo ku haysta annagu ilaahay baan caabudnaa oo nabi maxamed baan caabudnaa oo abbaayaan caabudnaa abbaay ma taqaanaan abbaay faadumoy waa tii markay raggu ay xagga awliyada aadaan dumarkuna xaggeeda aadi jireen oo iyaday muxuu ahay ku tawassul jireen marka waa amaama almala rasuulkaan caabudnaa oo abbaayaan caabudnaa cibaada waxay tahay waxa laga yaabaa inaysan fahansanayn waxaan isdhihi oo suurtagala in lays yidhaahdo war ruuxaasi waa ruux iska caamaya oo malaha waan caabudnaada waan jecelahay inuu ka wadaa dhici karta laakiin tafsiirkaasi wuxuusan ku soconaynin markaad culimada wax bartay ee sheekhyadu aad u naabato waxaan waa wax dadka lagu ababiyey waay inay sidaa tahayna miaal baan siinaya hal miaal oo isagana social media hadda ku jira wadaadkan la yidhaahdo macalin maxamuud ee qolyahan ahlu sunnaha sheekha u ah ahlu sunna wal jamaa la yidhaahdo gobolada dhexe waxaad ka helaysaan muxuu ahay social media ku jira طيب xertiisii buu u qisoonayaa qiso u sheegay qiso la yaab leh wuxuu waxaa jira buu yidhi waxaa jiray sheekh la yidhaahdo salmaan magaciisa la yidhaahdo wuxuu ahaa weli samada fuula oo duulu ahaan jira markuu dhaqaaqahayo duulidda bilaabayo wuxuu dhihi jiray yaa xanaan yaa xanaan yaa xanaan markaasuu ku dhaqaaqi jiray markaa sida diyaarad muxuu ahay runwaygeeda ku kacaysoo kale yaa xanaan markaasuu kacaya khaadimkiisii ama nin muriidkiisa ah ayaa wuxuu ku yidhi sheekhow inaan ku raacaan rabaa inaan kula duulaan rabaa markaasuu sheekhi wuxuu ku yidhi qalbigaagu waa daciif ee inaad raacda ma kari kartide iska joog muriidkii waa ku adkaystay mee sheekh inaan ku raacaan rabaa markuu ka celin waayo ku adkaystay ayuu wuxuu ku yidhi dayib inaad raacdaa salaamad rabtaan soo maaha markaan dhaqaaqo anugu aan dhaqaaqayo oon duulidda bilaabayo waxaan dhihi yaa xanaan yaa xanaan yaa xanaan aduguna waxaad tidhaahdaa yaa salmaan yaa salmaan yaa salmaan kadibna isoo raac yaa duulidda isoo raac wadaadku muxuu leeyahay yaa xanaan muriidkuna muxuu leeyahay yaa salmaan waa magaciisa waa la dhaqaaqay wadaadkii wuxuu yidhi yaa salmaan wuxuu yidhi yaa xanaan waa dhaqaaqay muriidkiina yaa salmaan waa ka daba dhaqaaqay waa la wada duulay hawada sare mar la joogo oo halkaa kore la marayo ayaa muriidkii waxaa u yimid ibliis shaydaan baa u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ayuha arajulu kafarta billaah shaydaan baa ku dhahay warniyahow ilaahay waad ku gaalowday miyaadan maqlin waxa sheekaagu leeyahay oo muxuu yahay yaa xanaan buu leeyahay waana magac ilaahay magacyadiisa ka mida adiguna magicii sheekhaagaad ku dhawaaqaysaa soo gaal ma tiid buu ku yidhi yaa ku dhahaya shaydaan baa ku dhahaya hawada saraana la maraya markaasuu wuxuu ku yidhi war gaalnimaad ku dhacdee yaa salmaanka intaad iska daysa yaa xanaan dheh muriidkii warkii buu qaatayoo markaasuu wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo yaa xanaantu yidhiba waa soo dhacay yaa xanaan hadduu yidhiba waa soo dhacay sheekhii baa qabtay waa dejiyey dhulkuu geeyey halkaa markuu sheekhu qisada marinayo ardadii iyo isagiiba waa isla qosleen waa la isla marqaamay safartii iyo duulitaankii sheekhii ka soo noqoy muriidkii baa weydiiyey
wuxuu ku yidhi sheekhow magacaaga markaan qabsadayna waan duulay magaca ilaahay markaan qabsadana waan soo dhaco waan duuli kari waayay sababtu maxay tahay wuxuu ku yidhi magaca ilaahay waxaa ku duula ninkii ilaahay yaqaana caarif billaah waa darajo dariiqooyinku gaadhaan wadaadadu ninkii caarif billaahi baa magaca ilaahay ku duuli kara adiguna caarif billaahi ma tihid oo maadan gaadhin haddaadan ilaahay garanayninna anaad i garanaysay maadaama anigoo caarifa aad i garanaysay baad magacayga ku duuli kartay ilaahayse magaciisa kuma duuli kartid markaad magacii ilaahay intaad qabsatay kii sheekhaaga aad meel iska dhigtay oo adiga soo dhacay buu ku yidhi maxaad halkaa ka fahanteen war wixii munaaqibkii ku qornaa ma aha munaaqibkii sheekh cabdulqaadir jiilaani wixii ku qornaa ma aha manaaqib aways wixii ku qornaa ma aha waa wadaad hadda jooga oo ummad hor jooga oo weliba qoryo haysta oo intaasoo kuraasa haddaan laysiinin nidaam dhismi maaya leh oo ahlu sunna waljamaaca oday u ah soomaalit ilaahay baan kugu dhaariyey ruux muslim oo jaahilba ha ahaadee oo caqiidadii asalkee uu ku dhashay haysta aan la fasaadinna xataa aan waxba baranin miyaa laga dhaadhicin karaa magaca ilaahayna kuma anfacayo ka sheekhuna waa ku anfacaya ya miyaa laga dhaadhicin karaya marka waxaa soo baxday ummaddii dhib baa haysta ummaddii qaar ka mida dhib baa haysta waana arrin u baahan in wax weyn laga qabto waa hal qiso laakiin qisooyinku way badan yihiin social mediahana waad ka dhergi kartaan waxa dhex yaallee noocaasoo miidhan annagiiyo marka qolyahan dariiqooyinka ah maxaan isku haynaa waaye war dariiqooyinka kuraas iskuma hayno kuraastii rag kalaa ku fadhiya oo aan dariiqana ahayn annagana ahayn baa kuraasta ku fadhiya kuraas iskuma hayno xoolana iskuma hayno annagana xoolo kama qaadanno dadka iyagana malaha siyaaradii inay ka go'day baan malaynaa xoolo iskuma hayno adduunyo kalena la iskuma hayo laakiin maxaa la isku hayaa waxaa la isku hayaa war addoommadan ilaahigii abuurtay ku xidha khalqigana ka gooya iyo ma ahe addoommadani ilaahay toos uma aadi karaane annaga ha nagu xidhmaan islaan isku hayno intaa waaye soo ma waa midii ahlulkitaabka alla ku yidhi nebiga ku dheh yaa ahlalkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illaah war wadaad baa duulay iyo wadaad baa dhulkiiyo cirka kala haya iyo wadaad baa idin irsaaqi iyo wadaad baa wax idin siin iyo wadaad baa janno idiin qaadi iyo wadaad intaad dadka ka daysaan ilaahay ku xidha iyo ma ahee dadku ilaahay ma ka muuqdo waxaa la yaab leh oo aad loola yaaba ah qisada ibliis iyo shaydaan baa wuxuu leeyahay ninkan muriidka ah war waad gaalowday ilaahay magaciisa qabso sheekhiina muxuu leeyahay war magaca ilaahay ka tago kayga qabso xataa ma ibliis baa tawxiid dhaama ya ibliis baa wuxuu ku leeyahay war waad gaalowday magaca ilaahay qabso sheekha magaciisa ka tag sheekhiina wuxuu leeyahay war kayga muxuu ahaay ka ilaahay ka tago kayga qabso xataa qisada qaabkuu u sheegayo ibliis inuu caqiido dhaamo waxa sidaa u hadlaya qisaska noocaasoo kaleeta ah yacni xataa ma dareemayo saas daraaddeed ummaddani waxay u baahan tahay in la xoreeyo caqligeeda in la xoreeyo caqiidadeeda in la xoreeyo in laga xoreeyo khuraafaadka noocaasoo kale ah waxaana lagula dagaalsan yahayna waa intaa waxaana lagula dagaalsan yahay intaa waaye ummaddan in laga daayo ilaahaygii abuurta lagu xidho ilaahay keligii barya ilaahay tala saarta ilaahay wax ka raadsada wadaadkani waa makhluuq aan waxba haysanin waxbana ma heli karo waan duulay wax jira ma aha samadaan dad ka qabtay wax jira ma aha waxaasi khuraafaadkaasi ma jiraane war khalqiyow ilaahay caabuda diintii nebi maxamed taasay la timid adyaantii samaawiga ahaydna kulli mabda'aasay la yimaadeen qodobkaan isku hayno waa qodobkaasi ma aha nafci iyo adduunyo iyo wax kale la iskuma hayo waxaan dhihi lahaa marka isla munaasabadaasi
qolyaha dariiqooyinka iyo dadka mabaadida iyo afkaarta lagu kala duwan yahayba dalka iyo deegaanku dadka waa ka dhaxeeyaan hadday suurtagal tahay inaynu wada fadhiisanno aynu wada niqaashno oo aynu si degan u wada hadalno masaa'ishan isula baadhno fa marxaban bikum soo dhawaada hadda ka hor baan Nairobi munaadaro ku galay munaadarayna natiijadeedii waa la ogaa haddana waxaan leenahay waxba ha qaylina ha buuqina ha mudaharaadina dumarka iyo ciyaalka waxba ha kicinina waxaad samaysaa culimo ay leeyahay masaa'isha aad muranka ka qabtaan ama dooda ka qabtaan la isku riixriixin aayar inta la wada fadhiiso aan isla bogsiino diyaar baan u nahay hadday suuroobi weydo oo arrintaasi idinka suuroobi weydo markaa kadib naqdiya waxaan rumaysanahay ka hadla dadka muxuu ay ku baraarujiya laakiin aflagaadadii cayd iyo been abuuradka iska daaya diin ma noqoto sooma af caytamay ninkiisu ku yaala diin ma noqoto been abuurad iyo waxaan jirin oo la sheegay caruur iyo dumar la kiciyo diin ma noqoto ala aqalli taqdiir usluub cilmi ah oo degan waxa aad ku haysataan iyo waxaad nagu haysataan iyo waxaad qabtaanba u sheega laakiin si khaldan in ummadda wax loogu sheegay khalad waay waxaan rabaa inaan dul istaago qadiyada ku saabsan nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo meel kaga dhicis oo soo noqnoqotay oo ay noqotay qadiyad ay iyadana dadka ku kiciyaan mar walbana soo laabata qadiyada iyada waxaan doonayaa inaan si gaaban ugu dhaado horeyna muxaadaro dheer baan uga galay oo aan doonayaa cidii doonaysa tafaasiisheeda inay hesho cilmiga inay u laabato waxaan si caawa ka dhahayaa kow horta waa la isku waafaqsan yahay qur'aan iyo sunno iyo ijmaaca ummaddu waxa waaye nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi biabi huwa wa ummi ciddii cayda ama aflagaadaysa ama meel kaga dhacday inuu kaafir billaahi yahay dilkiisuna bannaan yahay bal inuu waajib yahay xataa culimmada in badani waxay qabaan cid cafin karta inaysan jirin xuduudda kale xataa towbad bay ku dhacdaa bay yidhahdeen laakiin ayadu inaysan xataa towbad ku dhicin bay culimo badan rumaysan yihiin mas'aladaasi waa masalo musallam ah ruux muslim oo ilaahay rumaysan inuu nebi maxamed u gafaayey wax sahlan maaha in lagu tuhmaana wax sahlan maaha amaa mas'alada laga hadlayaay mas'aladu waa mas'alo cilmi ah axaadiid badan baa ku soo aroortay anas ibn malik xadiidkiisa fi saxiixayn baa ku yimid xadiidu caaisha cinda ahli sunan baa ku yimid xadiidka kultuum ibnu mustaliq zaynab binti jaxshi sunan abi daawuudkaa ku yimid xadiidka xafsa ku yidhi cinda shaykhayn xadiid abi saciidin alkhudri baa ku yimid mas'aladu masale axaadiid badan ku yimaadeen waaye axaadiista faraha badan masaadirteedii iyo meeshay ku taallana muxaadaradan ku caddeeyey hal xadiid keliya ma aha waxaa laga yaabaa inay wadaadadu markay masalada ka hadlayaan xadiidka anas fi saxiix bukhaari iyo keliya dul istaagaan laakiin masaladu axaadiis badan bay leedahay inay istiicaabaan oo masalada axaadiista ku soo aroortay kulli ururiyaanna waa ka rajaynaya ciddii doonaysa axaadiista masalada ku soo aroortay culimmada sharaxday oo sidaan anugu martay iyadana waan jeclaan lahaa in kutubtooda lagu laabto waxaa ka mida الإمام النووي وحاكم ذا الحافظ ابن حجر العسقلاني وحاكم ذا الإمام العيني وفتح باري شرحي وحاكم ذا شهاب الدين القسطلاني وشرحي سور بخاري شرحي وحاكم ذا ابن الحجر الهيتمي فقيه شافعي لها تحفها لها صوم حاشية منهاج كسار ليد الصومالي العلماء انت بدن باي نقطه ابن حجر الهيتمي شرح الشمائل كيسا بيساق لفتيسو كاكا هاللي وحان ليه لا مركا وقلط انت اسو علماءنا انا قاليسين وذات كان مسكين كأنا قال لي ما الله ضبط صعوتاني مسألة علمي أنا معها هذا المسألة هذه اللي قالوا بيو الدين تلاقى قبح النبي محمد لو قفه إمام النووي كسو بالله وابن حجر كسو حجية وقسطلاني كو حجية ومناوي كو حجية وابن حجر الهيتمي كو حجية أو واحد ترى دين توا كبحين ومالنا والراعدة
wax la aqbali karo waa inaydaan arkin oo aydaan daalacanin kutubtooda iyo masalada waxay ka yidhaahdeen xadiista qaabkay u sharxeenna waa ceeb oo waxay ku tusaysaa iطilaaciin iyo daalacashadiinnu inay gaaban tahay haddaad aragteen ood ummadda ka qariseenna iyadana waa ceeb labaad waa masaladuna waxa weeye markay tahay nin maagid markay tahay cilmi aan loo jeedin meesheeda waa taa waxaan dhihi lahaa in badan oo iyaga ka midana oo weliba xaqdoon ahaa muxaadaradii horeen masalada ka jeediyey markay dhegaysteen qaar fara badan baa ka noqday weliba qaar fara badan baa intay ii yimaadeen bay cafi i weydiisteen oo yidhahdeen sheekhuna saamax masaladan si khaladana loogu dhigay baxtigii muxaadarada marka aragnayna waxaan ogaanay masaladan inay tahay masale ay culimmadu ka hadleen isla baxdiga laftiisa waxaan ku caddeeyey axaadiistaasi siday kutusoo saxaabadu u sheegeen a'imaduna u fasirtay inaysan marnaba ka dhalanaynin nebiga meel kaga dhac inaysan ku ahayn laakiin fahamkeenna uu yahay saan annaga u fahamsannahay iyo dhaqankeennii markaan ku miisaanno markaasay isu bedeli kartaa inay tahay meel kaga dhac tahay laakiin dhaqankoodii iyo waagii iyo xilligii iyo meeshoodii ceeb ma ahayn dhaqan soomaali baad la aadaysaan laakiin waxaan dhihi lahaa dadka caamada ah oo iyagu aan wax baadhi karin masaa-isha aan ka baaraandegi karin shalay tadan qoyanay mise daraad wiil dhallinyaro ah baa etoobiya wuxuu iiga soo diray whatsappka fariin iga soo faray wuxuu yidhi sheekh umalow horta murtad baad dhiiggaaguna waa bannaaya kow ilaahayna janno ku gelin maayo xaaraan bay jannadu kaa tahay war maxaa dhacay nebigaad meel kaga dhacay war bal ii soo sheega xaggeen kaga dhacay soo saas iyo saas maada dhih si fudud maana ka doodin inaan gaal ahay kalama doodin inaana jannada gelayninna kalama doodin iyo inaan gelayo toona laakiin si fudud baan masaladii waxaan ugu diray axaadiista ku soo aroortay waxaan u diray aqwaasha ahlulcilmiga waxaan ku idhi meeshaa ka raadi wiilkii waa soo degay ya waxay hadda ii maraysaa inuu soo gaadhay oo yidhaahdo sheekhow sidaasaan ahay nin noocaasaan ahay khayr allaha ku siiyo bal muxuu ahay waan fiirinaya aqwaasha ahlulcilmiga laakiin wax badan baa ii kordhay waxaa ii dambeeya marka dambe inaan dhahdo khaladkii ka laabo sheekh umal janno ma geyn kartide laakiin fi nihaaya markuu qanco inaan dhahdo masalada waad khaldantay marka masaladani waa masale noocaasa waay dadka caamada iyo dalabatulcilmiga waxaan dhihi lahaa masaa-isha noocan oo kale ah kutubta ku qoran axaadiista ku soo aroortay cilmiga ah haddaad baadhi kartaanna walaalayaalow baadha ka baaraandega haddaydaan baadhi karayninna ka gaabsada ugu yaraan ama inaad caytanto aflagaadooto wax xukunto masaladana aadan aqoon u lahayn wadaad gaabiyey aad ka dhegaysatay khalis baad geli kartaa ninka aad caayaysana eed gaalaysiinaysana asaga dan baa ugu jirta masaladaa ogaada wadaadka la caayahaye la aflaagaadaynaya lagu xadgudbahaye naarta la gelinayo asaga dan baa ugu jirta ya ajir buu guranayaa dadkao dhan hadday caayaan adduunkao dhan wada caayo asagu alxamdu lilahi buu leeyahy ya dadku inay caytamaan alxamdulillah ku dhimay lakiin ajir buu guranayaa adiga unbaa khasaaraya saas daraaddeed caydii aflagaadada ha la iska daayo masaladu masale cilmi waay ciddii baadhi rabta ahlan wa sahlan diyaar waxaan u ahay diyaar waxaan ahay caawa soo halkaa ma joogno diyaar waxaan u ahay meel kasta ninkii culimaa oo igala niqaashayo masaladaa iyadaa goobtuu joogo iyo xilligaa soo sheego dariiqooyinka iyo wadaadada la midka masaladan dooda ka qabay hal sanaad haysataan hal sano soo baadha kadibna baxfigeeda meeshaad doontaan inugu ballamiya diyaar baan u ahay amaa fawdo la kiciyey iyo buuq la kiciyey inaan masaa'il cilmiga uga tanaasulno dadkoo dhan haddaad soo kicisaan oo ummadoo dhan aad wada kicisaan ood ra'yigooda beddeshaan masale aan diin ahaan ugu qanacsanaya ka tanaasuli maayo waa ku dheganaanayaa ilaa aan wax iga qanciyo diiniyan aan arko taana intaas ayaan kaga baxayaa inay soo noqnoqotana runtii ma aha laakiin waxaa laga dhigtay wax lagu dangaadho oo muxuu ahay awrka lagu kacsadaa laga dhigay haddaan ka bixi rabo oon gebagabayn rabno insha allahu tacaala barnaamijkii wakhtigaa inaga dhammaaday waxaa soo baxay sidoo kale ummadda soomaaliyeed iyo deegaankeeda iyo dalkeedaasi baraarug baa jira runtii waa dal soo kacaya soona kabanaya laakiin waxa ugu badanay haystaay waa 2 mushkilo ama 3 mushkilo dheh ammaan darrada
oo salka ku haysta ururkan al-shabaab. qodobka labaad dabaqad siyaasiyiin ah oo nafciyiin ah, dabaqad siyaasiyiin ah oo faasidiin ah oo nafciyiin ah. dalka waxay u burburinayaan oo u baabi'inayaan keliyata inay iyagu nafci helaan, inay kursi helaan, inay xoolo helaan. caqabaadka ugu adag ee dalka haystana waa siyaasiyiinta faasidiinta buu ka mid yahay. aniga wuxuu ahay siyaasi waxba aniga igalama jiro, siyaasi aniga ma shaxaado, xoolana kama raadsado. haddaan u tagoon is aragnana naseexadii shareecadu i fartay baa naga dhaxaysa, walaa mid halkan jooga, walaa mid Soomaaliya jooga, walaa mid meel kale jooga. hadduu jiro wadaad shaxaado, aniga shaxaad uguma tago, shilina kama qaato, laakiin runtaa loo sheegi. qodob waxa weeye siyaasiga faasidka ah ee dalka darabudhlaha ku haysta, waa qodob labaad waaye. qodobka saddexaad ee waddanka ku fadhiya waxa weeyaan wacyi darrada bulshada waaye. wacyigii bulshada hooseeya oo ninkii danaystaha ahaa uu isticmaalayo, mar uu qabyaalad ku kicinayo, mar uu wax kale ku abaabulayo, iyagii uu danahooda ku burburinayo. sidii horeba u dhacday dalkan in lagu burburiyo magac qabaa'il baa haddana waxaa lagu burburinaya rag masaalix leh oo haddana danahooda wata laakiin shaatiyo kale u gashanaya. bulshadiina wacyigeeda ayaa hooseeya oo muxuu ahaayey in badan oo ka mid ah inay wax fahmaan baaya. waxaan ku gabagabaynayaa fawaa'idda inooga soo baxday waxaa ka mid ah aayaddii qur-aanka waxay ahayd laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum. xaggay ku soo arortay aayaddaasi? fii qisati alifki, nabigeenna sal alla alayh wasalam gurigiisii iyo xaasaskiisa markii lagu been abuurtay, khaasatan xaaskiisa caaisha, 12 aayadood baa soo degtoo lagu bariyeelayo. allah tabaaraka wa tacaala aayaadkaasi bilowgooda wuxuu yidhi laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum. shar ha u malaynina, khayr bay idiin tahay. ma gurigii nebigoo lagu been abuurtay oo bil kaamil ah qas iyo rafaad ku jiray miyaa khayr ku jiraa? see khayr ugu jiraa waa oo imsaa khayr ka dhashay? sax shar waa ku jiraa, laakiin khayrka ka dhashay baa ka badan. soo saas ma aha? sidaas daraaddeed in muxaadaro la istaajiyo oo muxaadaro istaagtaayey nafciga nooga dhashay baa nooga badan. waa ka weeye horta muxaadaradii alxamdulilah waan jeedinayoo jumhuur intii ka badan baa dhegaysatay oo telefishinkay ka baxday. soo maa isbaktiibadu ma aha guri la caabuda ma ahe garoon uun lays yidhi dadkay wada qaadi kartaaba ahi. iyadii haddii qas galayna alxamdulilah meel ka ballaadhan bay ka baxday. waa qodob. qodobka labaad waxa weeye ilaahay fadligii waxaa inay muuqatay in dadka nugu tuhunsan inaan dhiigga ummadda daadinteeda fatwoonayno inay iyagu carruurtii iyo dumarkii ay wejiga hore keeneen, ayaguna gadaal ka fadhiisteen, ciyaalkii iyo dumarkiina soo hormariyeen, qas iyo rabshado inay dhacaanna ku talagaleen, annaguna aan uga tanaasullay inaan baajinno ruux muslima inay dhibaato gaadho. waxaa iyadana ahayd faa'iido ahayd runtii oo ilaahay qadartiisaba ahayd. muxaadarada markii loo ballansanaa galabtii axadda ahayd, u fiirsada, haddaan la baajin lahayn roob baa baajin lahaa. duhurka wax yar kadib roobkii bilowday ilaa fiidkii buu da'ayay. marka waxaan is idhi malaa muxaadarada haddiidaan baajin lahayn oo roob ku baajin lahaa, wadaadadu waxay dhihi lahayn roobkii samadii baan ku fasaxnay. samadii baan ku soo fasaxno annagaa kala tuuray bay dhihi lahayn. markaasaa laga yaabaa inay khalad kale sii geli lahayeen. marka meeshaa waxaa ka soo baxay man taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran minhu.
shay haddaad ilaahay dartii uga tanaasuso ood uga tagto wax ka fiican bu ilaahay kuugu bedelaa nebigaa sidaa yidhi sal alla alay wasalam soo maaritaan marka intaasi waa khulaasadii safartii iyo mulaaxadaadkeedii iyo maxaa ka dhashay muhiimaddii aan u tagnayna ilaahay fadligii waa noo xasishay warbixinteedoo kaamil oo tafaasiiloo dhammaystiranna berri galab baa ganacsatada loo baxan soo berri maahin maya sabtida galabtii baa loo ballansan yahay odayaashii raacay meeshan ka tegey oo xaaji abuukar gudoomiye ku-xigeenkii masaajidkeenna xaaji cabdullaahi caraay fadhiyan manine waa odayaashii aan israacnay cabdinaasir cabdi muxuu ahay isagana sidoo kale iyo cabdirasaaq muxuu aha cabdiqaadir sheekh muumin iyo gabadh iyadan shukri la yidhaahdo lixdaasaan ahayn ilaahay fadligii muhiimaddii aan u tagnay si fiican bay noogu soo dhacday ammaanadiina waa gudanay ilaahay hanaga aqbalo intii bixisayna ilaahay ka aqbalo ilaahayna tabaaraka wa tacaala ummad fara badan buu runtii dhibaatadii haysatay wax badan muxuu ahay kaga fududeeyey intay dooniba ha dhannaato marka intaasi ayaan doonaya caawa inaan kusoo gabagabeeyo muxaadaradii ciwaankeedu ahaa safartii gurmadka iyo faa'iidooyinkeeda iyo duruusta ka dhashay iyo dilaalaadkeeda hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam